Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha Soomaaliyeed ee ku xiran channelka Wardoon Academy, dhammaantiin meel kastoo aad joogtiinba waxaan hawada idin soo marinayaa salaan. Videogan dabcan ma ahan cashar sidii aad horeba iga barateen casharo tixana oo ku saabsan luqadda Boortaqiiska halkan kusoo gudbiyo, balse waa bandhiga ama faahfaahin ku saabsan buugga Isbar Boortaqiis Macallin La'aan, kaasoo ah buug laga baranayo luqadda Boortaqiiska ama isku tarjumaya luqadaha Boortaqiiska iyo af Soomaaliga. Buuggan oo ah kii u horreeyay ilaa hadda intaan ka warqabo oo la qoro, kaasoo isku fasiraya luqadaha Boortaqiiska iyo af Soomaaliga, ayaa waxaa ku jira faa'iido badan ama wuxuu ka kooban yahay qaybo kala gedisan. 8 qaybood ayuu buuggan ka kooban yahay, ma taabanaya qaybahaas oo aan insha Allah videogan sharaxaad uga bixi doono waxa ay kala yihiin. Haddaba dadka Soomaaliyeed ee daneynaya inay bartaan luqadda Boortaqiiska ama hadda baranaya ee u baahan buug tixraac ah, waan kula talin lahaa inay iibsadaan buuggan oo ka soo baxay waddanka Angola, caasimadiisa Luanda. Waxaa laga heli karaa sidoo kale waddanka Mozambique, gaar ahaan magaalada Nampula, waddanka Kenya, caasimadiisa Nairobi. Sidoo kalena waxaan wadnaa dadaal ama isku day ah inaan gaarsiino waddan kasta oo markaas qofku uu uga baahan yahay buuggan ama loogu geeyo haday noo fududaato insha Allah. Sidaan hore usoo sheegnaba, buuggan wuxuu ka kooban yahay qaybo kala gedisan oo ah luqadda Boortaqiiska. Qaybahaas oo ah 8 qaybood. Qaybta koowaad haddaba waad arkaysaan halkan. Qaybta koowaad waa qayb asaasi ah, alfabeetada luqadda iyo calaamadaha hadalka, magacyaalada, tilmaamayaasha, sidoo kale erebixino, jinsiyada labka iyo dhadiga, iyo tirooyin ayuu taabanayaa. Waa qayb asaasi ah. Halka ma meesha qaybta labaad waxaa laga baran karaa qaybta labaad ama ay ku saabsan tahay, ma laga heli karaa jumlado aad iyo aad u muhiim ah oo ku saabsan luqadda, weero ama jumladooyin kuwaasoo kor u dhaafaya 1000 jumladood. Waxaa kaloo laga baran karayaa tirooyinka, sida loo tiriyo luqadda Boortaqiiska ama nambarada sida loo aqriyo, ficilka ahaanshaha oo isagana aad iyo aad muhiim u ah. Waxaa laga baran karaa sidoo kale midabyada, jihooyinka ama xilliyada kala duwan. Markaan leenahay ficilka ahaanshaha, qaybo kala duwan ayuu leeyahay oo ficilka ahaanshaha sida tagto, joogto iyo xaadir. Sidoo kalena ficilka lahaanshaha ayaa laga heli karaa. Qaybta saddexaad waa qayb iyadana aad iyo aad u muhiim ah oo ka hadlaysa erebixinada. Erebixino kala duwan ayaa qaybtan ku jira. Haddii erebixinada ku saabsan familka, miraha iyo khudaarta, jirka bini'aadamka, cuntooyinka iyo cabitaanka, alaabooyinka guryaha yaalla ama jikada, dharka iyo alaabooyinka kale, magacyada cudurrada, xirfadaha, dadku xirfadahay leeyihiin, dowladda ama magacyada xubnaha dowladda, magacyada xayawaanaadka, gaadiidka, ciyaaraha, erebixin ku saabsan ciidanka, erebixin ku saabsan diinta, erebixin ku saabsan caafimaadka. waxaa kaloo
laga heli karaa erebixin xisaabeed ama xisaabta ku saabsan. weli isla qaybta saddexaad ayaan ku jirnaa. erebixin ku saabsan xisaabta, erebixin ku saabsan maalmaha asbuuca, bilaha sanadka, baabuurta ama baabuurka iyo birihiisa, qalab guriga kale, alaabooyin guryaha, alaabooyinka iskuulka, erebixin iskuul ku saabsan, qalabyo dhisme iyo alaabooyin kale, erebixin ku saabsan doorashada iyo siyaasadda. sidoo kale qaybta afaraad ee buugga waxaad ka heli kartaa jumlado aad iyo aad u muhiim ah, wada sheekaysi ah, sida iskuulka la isaga qoro, sida ardada fasalka joogta loola hadlo, sida naftaada looga hadlo, sida saacadda loo weydiiyo ama waqtiga, sida telefoonka loogu hadlo, sida cimilada ama heerkulka looga hadlo, sida suuqa khudaar looga iibsado, sida dhakhtarka loola hadlo, sida dhakhtarka loo ballansado, sida dhakhtarka ilkaha loola hadlo, sida lacagaha qalaad loo sarrifo, sida bangiga akoon looga furto, tima jaraha masaaluunka erebixin ku saabsan, sida maqaayadda cunto looga dalbado, sidoo kale sida taxi loo kireysto, sida guryaha loo kireeyo, hoteelada sida qol looga kireysto, sida loola hadlo saraakiisha laanta socdaalka iyo kastamka, sida dharka loo iibsado ama dukaanka dharka bacadlaha sida dhar looga iibsado, sida booliska loola hadlo ama loo dacwoodo qof loogu dacweeyo booliska, sida booliska dhaqaalaha loola hadlo. qaybta shanaad oo aad iyo aad u muhiima waxaa ku qoran kunka ficil ee ugu muhiimsan luuqadda. mil verbos que tens que saber. kunka ficil oo ay tahay inaad garato ayaa ku qoran qaybtaas. qaybta lixaadna waxaad ka heli kartaa mahmaahooyin ugu yaraan 35 mahmaah oo luuqadda Boortaqiiska ah, kuwaasoo lagu sii fasiray mahmaahooyinka u dhigma ee luuqadda afka Soomaaliga. qaybta toddobaad waxay ka hadlaysaa sharciga luuqadda. waxaa lagu faahfaahinayaa 10 qaybood 10 classificações gramaticais ama 10 qayb ee loo kala qaybiyo luuqadda Boortaqiiska ayaa lagu faahfaahinayaa. 10kaas qayb oo kala ah magac, sifo, ficil, falkaab, magacuyaal, artigo ama qodob, number, meeleeye, isku xire iyo dareen muujiye. 10kaas qaybood oo midiiba ay qaybo kala duwan usii kala baxdo ayaa ayagana ku eegaynaa qaybtan. qaybta u dambeysa ama qaybta 8aad ee ugu dambeysa luuqadda waxaan uga hadlaynaa kalaan waxa loo yaqaano ama afsuuq. afsuuqaas oo laba wadan ku saleysan luuqadda Boortaqiiska, laba wadan sida wadanka Angola iyo Mozambique. kalaan waa maxay? waa afsuuqaas oo labada wadan ku saabsan Angola iyo Mozambique. waa muhiim dhab ahaantii afsuuqa in wax laga fahmo, kulama talinaya dadku inay markasta isticmaalaan dabcan maadaama afsuuqyada looga hadlo wadamada ay kala gedisan yihiin. laga yaabo wadan looga hadlo luuqadda Boortaqiiska inaad ka tagto oo wadan kale aad aado, kadibna aad laga yaabo inaad isticmaasho ereyadii afsuuq ahay wadan kale aad kasoo baratay, taasoo keeni doonta dadkaas inaysan ku fahmin. sidaa darteed marka afsuuqa waa in la bartaa macnihiisa laakiin isticmaalkiisa la yareeya. haddaba inaad fahanteen ayaan jeclahay. intaas aad iyo aad u mahadsantihiin walaalaha ku tixan Wardon Academy. insha Allah casharadii waan sii wadi doonaa ku saabsanaa luuqadda Boortaqiiska, laakiin videogan waxaan ku eegayay buugga Isbar Boortaqiis Macallin La'aan. dabcan buuggan qofka haysta asaga ayaa sida magacuba ka cad yahay, magacaaba laga dareemi karo Isbar Boortaqiis isagaa isfasirayaba. wax badan u baahan maysid in qof kuu sharaxo. qofkii fahmi waayana waa loo fududeynayaa dabcan, oo qofkii qoray buugga ayaa diyaar ah inuu u fududeeyo qofkii u baahan sharaxaad dheeraada insha Allah.
aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.